السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فامilkayga youtube waa idin wada salaamay dhammaantiin adduunka geesihiisa meel kastaad ka joogtaanba waa walaashin xamdi shukri oo aad idin salaamaysa boqolkiiba boqol muddo xoogaa ismaanan maqal cajilana ma aanan soo gelin marka maasha allah ilaahay maantuu noo sakhiray alxamdulilah mashquul aawadiis marka maanta waxaa diiradda inoo saaran sidii ay ahaan jirtayba oo aynu ka hadlaynaa geedaynu horey uga soo hadalnay geedkaasoo ah xawaash duuduub waad u jeedaan xawaash duuduub ama kumuun ama xawaash bariis qolaba soomaalidu horta lahjadeen way kala duwan yihiin bay u taqaanaan kumuun baan idhaahdaa kumuunna waa kolley waa luuqadda ingiriiska horta ka timi horaanteeda marka cameradan hagaagsanaya marka geedkaas ayaa saaran maanta diiradda hopefully inaad aragtaan markaasa das leeyahay marka madiibadaydi hataa uu ku yaray baay labaas dib ma laha marka faa'iidooyinkiisii aynu hore uga soo sheekaynay oo cajilkii hore aan ku duubay anigoo uga hadlaya laabjeexa iyo gaaska siduu uu ugu wanaagsan yahay ayaan maantii hore kasoo hadalnay marka maanta waxaan ka hadlaynaa arrimaha dumarka muxuu ugu wanaagsan yahay arrimaha dumarka geedkan wuxuu uga wanaagsan yahay caadada number 1 caadada iyo dhabar furan hadday noqoto bleeding maaragtay bleedingku wuxuu soo gelayaa dhabar furanka caadaduna waa period ama maaragtay marka labadaas baynu diiradda saaraynaa iyo dhiig la-aanta saddexdaas marka horta caadada maaragtay gabdhaha caadada ku jirada maasha allah aad buu ugu fiican yahay hadday geedkan qaataan biyo karkariyaan maaragtay qadar malqacada ay qaadaan koob ku shubaan biyihii karkarsanaana kula shubaan oo la dhigaan wuxuu sameynayaa nabarka qabanaya iyo xanuunka qabanaya iyo jirka xanuunka uu maaragtay jir xanuun buu ku sameey bay leedahay maaragtay arrinka marxaladda gabdhuhu markay ku jiraan marka waxaa dhacaysa relaxi baad dareemaysaa nabraha ku qabanaya qofka way ka ba'ayaan tabar yaraanta maaragtay arrinka kaloo maaragtay qofka inuu xoogaa uu ahaado hormoonkiisa intay kacaan gabadhu waxa weeyaan upset waxa weeyaan calaashan uu qofkii maaragtay sidii uu iska xanaaqsan yahay oo kale marka arrinkaasna xoogaa maaragtay relaxi baad dareemaysaa xoogaa stresskaas inuu uu ka dhigo qofkii maaragtay qof normal jawi caadi degan maaragtay maalinkii marka 2 koob ama 3 koob hadday maaragtay gabadha ayaamaha xaaladda ku jirto marba a day 3 cups oo maaragtay koob shaaha ay shaaha ahaan u cabto oo meesheeda shaaha ay gashato meesha maaragtay aynu shaaha gashano hadday gabadhu ama hooyo ha ahaato ama gabadh yar ha ahaato ama dee qof meel dhexaad ha ahaado qofkii maaragtay xaaladda ku jiro weli xaaladaas maaragtay waynu wada garanaynaa xaaladda caadada ku dhex jira maaragtay saas uu isticmaalaya biyo karkarinaya 2 malqacadood ama 1 malqacad buu qaadaya qadar intaa leeg oo kale koobkii buu ku shubayaa biyihii buu la dhigayaa 10 minute buu sugayaa wuu cabayaa sidii maaragtay shaah oo kale wuu u sibgaraynayaa saa uu ka kabanayaa marka arrinkaas aad bay ugu wanaagsan tahay number 1 waxaan ka helaysaa deganaansho second horta wuxuu ka nabarka ku haya oo iyo majiirka calool maaragtay mindhicirka ku xanuunaya ayaa nabarkaas ku sii daynaya waxaa la dhahaa cramskaas oo dhan baa kaa fuqaya haddaa maaragtay hayfly aad qofku u bleed garaynayo dhiig badan uu ka imaanayo dhiiggaas wuxuu noqonayaa minimize wuu yaraanayaa haddii maaragtay uu kugu yaraan jiray calaashan waa cudur ahaan markuu dhiigu u badan yahay markii haddii on the other hand haddii maaragtay uu dhiiggaagu yaraayo wax micno leh aysan kaa imaanin oo maaragtay xanuun ahaan uu kuugu xidhmana wuxuu noqonayaa uu kaa soo gurayaa qashinkii oo dhan ya marka labada dacoodba uu la shaqaynayaa haddii uu xanuun ahaan uu aad u badanayo u bataacayo normal buu ka dhigayaa oo adjustment buu sameynaya haddii uu maaragtay uu kugu hakan jiray oo kugu yaraan jiray aad ku xanuunayso kaasaana dhib badan mogtahay kaasna si normal u soo baxaysaa oo maaragtay kaaga imaanaysaa marka taasi waa caadada second iyadana dhabar furankii oo galaya bleeding maaragtay bleeding nonstop dhiigga iska soconaya isagana waxaa laga qoray maaragtay inuu naasibo oo maaragtay uu dhiigii joojiyo
oo xilligiisa uu ku sameeyo maxaa la dhahaa inuu saxo oo xilliyadiisa qofka caadi hadduu qofka gabadha 28 ka maqnaan jiray hadduu 20 days ka maqnaan jiray hadduu maaragtay 90 days ka maqnaan jiray saasoo kale uu ugu saxayo marka iyadana saasaa laga qoray iyo faa'iidooyin kale oo badan leeyahay halka hadda kuma soo wada koobi karo waa buug iska gaboobay muhiimada kale oo iyadana inoo muhiima dubar ahaanta muhiim u ah waxa weeyaan dhiig la'aanta geedkan aad arkaysaan inagu raashinka un baynu ku darsanaa cuntooyinkaynu ku macaaninaa calaashaan isbays ahaan iyo cuntada inuu inoo macaaniyo inoo qorxiyo ayaynu maaragtay u isticmaalnaa bas laakiin shareerka naqaska lagu xirayaa raalli ahaa marka waxaad ogaataan inuu also u wanaagsan yahay allahumma salli ala maxamed maxaa la dhahaa dhiig la'aanta anemia number 1 anemiyada waxa weeyaan inaba caadi ma aha ya imagine geedkaas oo guryaheena iska yaala gabdhaha hadda Soomaaliya marka ay dhalayaan waxa la yiri waxyaalaha ugu badan ee u dhintaan waxa weeyaan maxaa la dhahaa markay dhiig baxaan then gabadhii she passes away ha umulraac ya umulraac bay u dhintaan marka hadday uurka markay leedahay ay iska koob ka cabto meeshii shaahaba maxaa la dhahaa briska waa loo soo gadayaa moogta hadday koobkooda shaaheedii ay isaga ka dhigato oo shaah ahaan u cabto dhiiggeeda kor buu usoo qaadayaa immune systemkoo dhanna wuu xoojinayaa number 1 waxaa laga qoray anemia haddaad raadisay waxyaalaha anemiyada soo kiciyaay xawaash dhuudhuubku waa ku jiraa marka maasha allah tabaarakallah waxaan idin leeyahay faa'iideyso wanaagsan geedkan xawaash dhuudhuubkana ma aragtay aad uga faa'iideysta waxaan anigu ama YouTube ka soo akhriyay ama maxaa la dhahaayay Google is useful place waa meel aad loo isticmaalo wax useful ma aragtay laga helo balse ma aha waa wax oo dhaqaadiir wax ka qoreen turjubaad badan lagu soo sameeyay laga soo shaqeeyay la xaqiijiyay inuu anemiyada u fiican yahay inuu cramska u fiican cramska waxa weeye nabarka qofka qabanaya caadada gabdhaha markay hayso inuu maaragtay bleedingka dumarka u fiican yahay menstrual period waxa la dhaho iyadana waa caadada imaanaysa inuu marka xataa ayaamaha oo allahumma salli ala maxamed ayaamaha oo umusha lagu jiro ayadana uu fiican yahay meelaha qaar xataa waxaa lagu xusaa inuu caanaha kordhiyo ya caanaha naaska inuu kordhiyo ayaa meelaha qaar lagu xusaa xataa oo la sheegaa inuu maaragtay caanihii uu breast milk increasing breast milk lagu leeyahay marka inuu hooyada caano naaskeeda caano badan sameynayaan uu dareerinayo kelmadaas af Soomaaliga raadinayo uu dareerinayo maasha Allah marka ka faa'iideysta haddaad rabtid inaa hooyooyin baa la wada yahay inuu maaragtay amraadaas caadada la xiriirta amraadii maxaa la dhahaayay umusha amraadii dhabar furanka amraadii dhiig la'aantaba bal inta uu faa'iido isku darsaday eega marka intaba amraadii naas nuujintii meelo badan baa iyadana lagu xusay in maaragtay la yiri breast caanaha naaska uu kordhinayaa marka waxaan leeyahay faa'iideyso wanaagsan idinkuna dhankiina research ka sameeya waxaad ka faa'iideen nala soo wadaaga waxaan idin leeyahay anigana waa dadaalka idinkana waa ducada barta aad nagala socotaana waa Xamda Naturals waxaan idin leeyahay subscribe sameeya like share biidnillah maartay asxaabtiina la sii wadaaga ka sii faa'iideysteen gambaleelka yar taabta sida hadan fiidiyoyada aan sameeyo ay idinku soo galaan waxaan leeyahay saas iyo ismaqal dambe oo wanaagsan biidnillah wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh